بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه آمين. باب الوضوء ويسد باب كيدي هذا محله ومبحثه إن شاء الله تعالى وحين هل كان قد قلينا أفرتي مقاصد في باب الطهارة تي كوباد ويسدي أي إن شاء الله تعالى هل كان قد قلي كلمات نوام براروجين مركة كوباد كتاب المنهاج الطالبين للإمام النووي وافق مذهبي وافق المذهب مركة مدها لغو براروج سنادو وعدة دقيسا معنيه ذو معها كلمات كستو صوم مرتا inuu sidan ka madhab dhiganayo taasi ma aha waxa loo yaqaano madaahibta cilmi ahaan waa naqlun waa wax la soo rarayo oo fiqigii madhabka ayaa sidiisii loo soo raray meelaha qaarkoodna waa la baraarujinayaa laakiin qasab ma aha mas'alo kasta oo tarjiixeeda la aaminsan yahay in la baraarujinayo waxaynu sidaa u diidaynaa dhowr qodob baa ka dhalanaya haddaad istidhaahid kitaabka isdultaag oo marba meel tarjiix ka muuji hortu fahamkiisu wuu lumayaa oo fahamkii aad wax fahmi lahayd haddii wixiiba aqwaal lagu dhex furo oo madaahib kale lasoo dhex geliyo oo lagu soo dhex naqliyo hortu fahamkii wuu adkaanayaa waana waxyaabaha keensada dalabatulcilmiga in badani inay fiqiga fahmi waayaan oo haddii meel kasta lagu soo naqliyo aqwaasha hadha way kaa lumaysaa laakiin marka aad sidiisa u qabato calaa aqali alaxwaal inta ugu yar madhabka fiqigiisaaad fahmaysaa hadhowna tarjiixa wixii aad ku dhex gurayso iyo markuu si wacan kuugu baxo waad isku dayi doontaa taasi waa qodob oo fahamkaa kaa lumaya qodobka labaad dee waxa uu noqonayaa halkuu fiqulmadhabi ka ahaa fiqulmuqaaran buu noqonaya fiqulmuqaaranna inaynu dee halkan ka dhigno oo kitaabkan aynu u bedelno halkuu fiqi madhabiya ka ahaa fiqulmuqaaran suuro geli mayso oo way adkaanaysaa waayo markaa waxaa kaaga dhow adoo kitaab fiqulmuqaaran sidiisa u ah oo la isku dubdhigayo aqwaasha ahlulcilmiga dee sidiisa u darsaa kaaga dhow qodob saddexaad wuu ka dhalanayaa haddaynu xoogaa hadalka isdul taagno tadwiil baa ka dhalanaya dheerayn ama si kale haddaynu u nidhaahno badii'u lqiraa'a qiradii inay gaabiso oo meelna gaari weydo faan noole fari kama qodno iyadoo arrintii ah oo minhaajku sugayo haddaynu maantaba halkan dhow aynu dul taagnaano dee kitaabka waktigiisaa lumaya oo sanawaad badan buu qaadanayaa markaa si aanay sidaasi u dhicin waxaynu isku dayeynaa meelaha uun qaarkood mooyaane inaynaan masaa'il badan tacliiq ku samayn oo aynan aada isu dul taagin kitaabka oo haddaynu biyo dhicinno oo marba meel qabanno dee waxoogaa kitaabkii waa meel la tegi maayo fahamkiina waa adkaanaya halkuu fiqulmadhabi ka ahaana fiqulmuqaaran buu isu bedelayaa markaa taasi waa taa laakiin meelaha aynu qabanayne marba yaro tacliiqinayno waxaynu uga jeednaa dacfi aynu isnidhi aragtideenna waa laynagu khilaafi karaa aragtideenna aynu isnidhi waa dacfi malaal liita inaynu baraarujinno waa uga jeednaa oo tacasub madhabiya inaynaan samaynaynin
markaas taba xaq loo hogaansamayo inaynu muujino waa doonaynaa cidda waxa weeye tacasubka samaynaysay inaynu u muujino madhabka masaa'ilka qaarkood lagu khilaafaa inaanay madhabkii oo laga baxay ahayna waynu ishaaraynaa mararka aynu tacqiibinayno marka insha allahu taasaydu ku baraarugi baaraka allahu fiikum baabu axkaami alwuduu axkaamtii weysada baabkeedii hada maxaluhu wa mabxathuhu weysada oo afartii maqaasida tii u horeysay ah waa shay cibaado ah ummadani ma la gaar baa mise lama gaar aha waa mas'ala khilaafiya laakiin waa shay cibaado ah waxyaabaha ummadda nebiga sala allahu alayh wasalam lagu garanayo maalinka qiyaamana ka mid ah oo ahlulcilmiga qolooyinka u arkay inay ummaddan ku gaar tahay waxay yidhaahdeen wataa calaamaadkeeda lagu garanayo min aathaari markaa masalan wuduu iyo sujuud iyo umuurahaasaa lagu fahmay qodob labaad waynu baraarujin weysadu waxay yeelanaysaa arkaan iyo sunan iyo shuruud intaba way yeelan arkaanteeda 6 rukni buu ku soo ururin doonaa 6daa rukniya uu ku soo ururinayo afarta aayaddu ay sheegtay ee ay nasgaraysay afarta xubnood ويا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أفرت آيات شاكتي أو وجهك والله ميرو إيا قعمها والله ميريو أو سحولادو أي لصعدان إيا مدح والله مصحيو إيا دمد والله ميريو وأرجلكم مركنو لها هذيك لنا ليرا هذا سنة النبي وموجنا صلى الله عليه وسلم مجاورها بانسان لو يري markaynu intaa ka gudubno afarta aayadu sheegtay labada kale lagu darayo oo niyada iyo tartiibka ah waxa la sameyn karaa in aayada laga soo saaro oo la yiraahdo 6daba aayada sheegtay waxa kale oo la sameyn karaa in sunnada nabiga lagu xoojiyo sallallahu alayhi wasallam oo la yiraahdo aayaduna ishaara waa ku sugan tahay sunnada nabiguna waa sii bayaamisay gaayat albayan ومثلا marka afarta aayadu cadaysay niyadii oo kale waxa looga soo saaraya oo aayada looga daliishanaya إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون marka damacdaan ina salaadii u kacdaan idinka oo weysadu idinka jaban tahay فاغسلوا وجوهكم أيضا معناه دوساس ودعيا مركا دمعدان إنا صلاة السبتاكتان إيادو ويسدوا إذا كتشبان طهي فاغسلوا وجوهكم مركا بحيوران أيام أهل العلم يقول إنا صلاة قصدي نيدي نشيغي نابواطها وإذا أردتم القيام إلى الصلاة مركا دمعدين إن صلاة أكعدا النية وقصد الشيء مقترنا بفعله والشيء إن لو قصدي يضع فعل كين الله راعينا يوالله الله مانينا مركا آيات دلفتي إذا النية دي ونكفهمينا وحنكقرنينا إن لليه هي ورمركا صلاة دي ضمعدان إنا السوتة أكتان دي ويسيستا مركا دونتانتان إنا ضمعدان إنا السوتة أكتان تالفتيدا نيدي ونيدي واتا ترتيب كان وحنو كقادنينا آيات اللفتيدا وحنو أرانينا لبا شيء أو آن اسكو جنسي أهين أو شيء كالي أو هو هوري لجنسي ناو كدن بيو إن انت جنسي قال إسراعين وايو
oo shayga kale ka jinsiga duwan la soo dhexgeliyo waxay keensanaysaa in sidaa la yeelo waa dan iyo xigmad laga leeyahay dantaa iyo xigmadda ka muuqataana waa in tartiib la muujinayo waayo wejiga in la maydho waa maydh gacmihii in la maydhaana iyaguna waa maydh aayadduna saasay ku sheegtay wamsaxuu biru'uusikum masaxa bacda ru'uusikum ha la yidhaahdo ama madaxyadiina masaxaba ha la yidhaahdee waxa weeye masaxaadda madaxii la masaxayo ayaa la soo dhexgeliyey iyadoo maydh la waday markaasaa misna maydhii dib loogu noqday oo la yidhi addimada maydha haddii aanay masaxaadan la dhexgeliyey haddaanay macno gaar ahi ku jirin oo tartiib ah dee inta maydha abaa la israacin lahaa waxaa la odhan lahaa wejiga masalan wejiga maydha iyo gacmaha iyo addimada madaxana masaxa oo madaxaa la dambaysiin lahaa laakiin in la dhexgeliyey madaxii oo masaxaad ah oo aan maydh ahayn kadibna lugihii oo maydh ah misna lagu noqday oo laga dambaysiiyey waxay muujinaysaa in la leeyahay tartiibka waysada ayaa la ilaalinaya ee wejiga maydha gacmahana maydha madaxana masaxa kadibna waxa weeye lugaha maydha tartiibka halkaasna waa ka qaadanaynaa bay ahayd marka lixdaba haddii aayadda laga qaato waa suuragal laakiin waxaa si cad looga qaadanaya iyadoo aayadduna ishaaraysa oo tilmaamaysa laakiin heer rukni iyo waajib biyo kama dhibcaana in la gaadhsiiyo sunnada nebigaanu ka qaadanaynaa bay ahayd sala allahu calayh wasalam oo ah niyada inuu nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam inama alacmaalu binniyaat in kaleba maaha acmaashu waxay ku xidhan tahay niyooyinka marka camal bilaa niye ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhowaanayaa sax ma noqonayo marka niyadii halkaa waa ka fahmaynaa bal qawaacidda shanta ah waa qaacidada koobaad alumuuru bimaqaasidiha umuuraha waa maqaasideeda ayaa ay ku xidhan tahay tartiibkana waxaanu ka qaadanaynaa bay ahaadeen ficilka weysadii nebiga sala allahu calayh wasalam hadday tahay intuu isagu weysaysanayey ee masalan iyo hadday tahay cid kastoo soo naqlisay oo sooba rartay inay tilmaantay nebigu sidaa inuu weysaysanayay inta laga soo wariyey iyo qolooyinka intay sameeyeen oo iyagu weysaysteen idhi nebigaasaa weysaysan jiray intuba tartiib bay kula yimaadeen sidaa ay u kala horayso ayay u kala horaysiiyaan mar hadday sidaa tahay tartiibku waa rukni bay yahdeen shaaficiyadu qolooyin adigu inagu khilaafayaa waa jirayaan oo xadiis abi daawuudka ku sugan oo ishor iyo daba mariyey masalan xubnaha qaarkood odhanaya xadiisku waa sugan yahay nebiguna waa sameeyey libayaan iljawaas inay bannaan tahay daraaddeed baanu u sameeyey dhibaata kuma jirto odhanaya in laishor iyo daba mariyo way jirayaan laakiin qowlka jumhuurka oo shaaficiyaduna ka mid yihiin tartiibka waxay ka dhigayaan inuu rugni yahay oo aan laishor iyo daba marin karin weysadu way iska kala qaabab duwanaan kartaa oo waxaa dhici kartaa weyso dee waxyaabaha qaarkeeduun gudaysa iyo weyse ka caamsan oo wixii weyse loola baahan yahayba gudaysa intuba way iman doontaa weyse kala dhiman iyo weyso dhammaystirana waynu arki doonaa bal markaa aan gudagalno si aynu wax uga ishaaro wuxuu yidhi farduhu faradkiisu
ستة واللح أحدها مدكود نية رفع حدث نية حدث كورياليستي مدكود والنية رفع حدث كورياليستي حدث كاسي أما مد حبناها كل ما يسترانها النقضة أما مد حبناها قاركود قصيها النقضة مد السنة بالله قرنا يها النقضة أما مد لغو قلدما لمد نقونا يا كانت قدتي ها النقضة حدثوا وحبا الموقلين رفع حدث كورياليستي marka xadaskaas wuxuu doonaha noqdo doona xubin qura ku saabsanaa oo weysadii waxa dhici kartaa in la kala qaado oo aad halkan laba xubnood ku sii maydho kadibna iska tagto oo masaajid hebelna labada xubnood ee kale hortiisa aad ku dhamaystirto oo aad gaariga iska raacdo meelaha dhexe hadhow aad inta kalena ku dhamaystirto marka hadhow dee waxaad ku sii wadaysaa markaad weysada qaybta dambe wadayso waa intaanu ku harsan ayay noqonaysaa waxaa dhici kartaa inaad khufayn xidhnayd oo ay cagaha dee ay kuugu jireen khufaf kuugu jireen kadib aad bixiso shaaficiyaduna ku yidhaahdaan labada adimood maydh dee markaaba xadaskii intan unbaad ka kor yeelaysaa labadan lugood uma harsan wax kale kuma harsan saawadeed buu yidhi waa niyatu rafci xadathin xadas koryeelistii niyadeed oo la niyoodo aw amase istibaaxati muftaqirin in la niyoodo banaysi muftaqirin ay shayin muftaqirin shay u baahan ilaa duhrin tahaaro qaadasho shay u baahan banaysigiis inaad markaa niyooto taasina waa qodob labaad aw adaa'i fardi alwuduu ama weysada faradkeedii inaad gudato saddexdaa qodob midun baad niyoon niyada marka la joogo ahlulcilmigu had iyo jeer 7 qodob bay ka hadlaan هل بيت بان يسوق كينان حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن هل كبيت أي يسوق كينان تضرب الشيء هذه يتشير يضع أشياء كبدا لقاها الله لكن تضرب الشيء هذه يتشير لقاها الله نية مركز لتشوه حقيقة النية ما حقيقتها حقيقة يدلقاهن وقصدي وإن هذا الشيء أقصده شرعيهن وقصد الشيء مقترنا بفعله وإن هذا الشيء أقصده أدقى فعل كينا راعنية هذا فعل كينا قدرية حقيقة يدوى انتهى حكمي حقيقة حكم كيدو وإني واجب تهي أما الشيء السنة هالنقضة أما واجب هالنقضة حكم كيدو وواجب محلك أي كدع عيسو إن يدا لغلا إيمانا يانا وقلبك عربكو هذه لغا بحض الله وحوشينون وميلها قاركود ودي دليلكو كسو أروري سيدا حجك وقاله هذه لغا بحض الله ولبيك اللهم بحج يوحي لم يدل الله يراهدو وحوشينون وهي السنة دي الله راعيو لكن معها وحوي مد شرط أما النية لفتيد حجك أدنيوتي هي عمرة أدنيوتي حتى تسكدر طيبة إحرامك اللي شيء يا قلبك وخدعية
marka niyadu qalbigay ka dhacdaa hadday salaad tahay hadday soon tahay hadday xaj tahay meeshay ka dhacaysaa waa qalbiga ama maxaluhaa faqalbu naawi fi kulli mawdicin bilaa munaawi sida uu tilmaamayey saaxibu faraa'id albahiya marka meesha ay ka dhacaysaa waa qalbiga oo qalbigay ka dhacaysaa waad arkaysaa salaada iyo waxay masalan weysada iyo marmarka qaarkood iyagoo hadal ku xoojinaya laakiin runtii hadalkaasi qolaba meel bay u daliishatay laakiin waa laga xoog badan yahay oo bacdu ahlilcilmina way adadkeeyaan oo hadalkaa lagu hadlay ilaa 10 weji buu bidco ka yahay bay yidhaahdaan ahlulcilmiga qaarkoodna way sugayaan oo waa ku xoogsanayaan qaarkoodna waxay ku dhaafayaan masaladaasi laysa bisaxiixi waana dariiqada imanka aynu marnay wey waayo qoladan sugaysa laftoodu ma xujo la'a ama ha yidhaahdeen xajka ayaan uga qiyaasanaynaa oo isba waa cibaada badaniya hadal baana lagu bilowdaa waxa weeye hadhowna waa laga baxayaa siyaabo gaarana waa loola imanayaa oo isaga asal intay ka dhigaan cibaadada kalena qiyaaska ha geliyeen maadaama oo cibaadaadka usuushan qiyaaska laga gelina xagga furuucda laga geliyo halkaa ha ku luqluuqeen qaarkoodna laba xadiis baabay istidlaaleen oo daliishadeen weliba ku xoogsadeen oo yidhaahdeen labadaa xadiis ayaa masalada noogu daliila intaasoo weji baanuna u daliishanaynaa inkastoo istidlaalkoodu aynu odhanayno laysa bisaxiix waxba inaynu soo naqlino iyo bartay ku sugantahay inaynu tilmaanana aynaan waxba doonayn misna waxaynu leenahay ninku inta uu xadiis dul taagan yahay ee leeyahay xadiiska nabigaan daliishanaya sala allahu calayh wasalam oo weliba ay u suuro gelaysana qaabkuu istidlaalayaana qawiga yahay haba laga xoog badnaado xadiisku si kale iyo mawdic kale oo istiftaax iyo umuuro kale uu ku saabsanaa adigu meelo kale hadhow haba la jebiyo istidlaalkiisa marka u dambaysa laakiin mar hadduu leeyahay xadiis baan daliishanaya waa xadiis hebel iyo xadiis hebel masalada daliil iigu ah ee bidca kuma dhicin qiyaasna halkaasaan uga qiyaastay de qiimayntiisuu leeyahay oo markiiba in si weyn loogu tacadiyo ma aha marka waxaynu leenahay waa laga xoog badan yahay laakiin dhammaan ahlulcilmigu waxay isla ogol yihiin niyada loo baahan yahay inay taa qalbiga tahay laakiin tan kale maxay tahay uun xoojintani ma sharci baa mise ma aha isba waa shardi ma lehe ma sharci baa mise ma aha baa laga wada doodaya oo liyusaacida lisaanu alqalba markay yahdaan ayaa la odhanayaa maya ee meeshan ma leeka iyo maya armay leeg tahay muranku waa halkaa masalan zamanka lala imanayo xaqiiqatun xukmun maxalun wa zaman waa shadrulbeytka hore zamanka lala imanayaa waa qabla alcibaada waa cibaadada horteed oo cibaadada ka hor ayaa lala imanaya ka hortaasi ama ha ku dhowaato ama in badan ha ka fogaato markay adkaato oo kale sida soonta oo kale dee fiidkii hore aad iska niyoonaysa hadday sunno tahayna haddaad doonto waktiga dhexdiisaabaad niyoonaysa oo niyadii waa laguu ogol yahay waktigii inaad ka dambaysiiso oo aad tidhaahid soontii waxay ka soo bilaabantay fajrigii iyo waagii wixii ka horreeyey bay ka soo bilaabantay oo waagu markuu dilaacay baa dee ay dhammaatay halkaasaa laga soo bilaabay laakiin hargalay ayaa mar haddaanan waxba cunin soontuna sunno iska tahay haddaa niyoonaya marka niyadu marmarka qaarkood cibaadada dhexdeeda soontoo kale way dhexdhici kartaa laakiin qaalibku waa awalka waa xagga hore wey awalkaasi ama ha dhowaado ama ha ka yara fogaadee oo mid xukmiya ha noqdo ama mid xaqiiqiya ha noqde waa xagga hore ay ka gelaysaa waaya kayfiyada iyo qaabka loola imanayo waxay isku khilaafaysaa abwaabta
markaad weyse niyoonayso markaad soom niyoonayso markaad zaka niyoonayso markaad xaj niyoonayso marba waxaad niyoonayso bay isku khilaafaysaa kayfiyaddu si gaaroo loola yimaado ma laha oo qaab lagu odhanaya markaad niyoonayso sidan isu gaabiyo sidan yeelo waxaan samee ma jiro marba waa baabkaad joogto shardigeedu waa qofkani waxaanuu niyoonayo horta qofku waa inuu muslim yahay qaalibka sidaasi baa la shardiyaa meelaha qaarkood oo culimmadu isku khilaafsan yihiin way jirtaa laakiin qofkii waa inuu muslim yahay islaamnimo iyo tamyiiz waa inuu wax kala garanaya oo qof dee qof waalan iyo qof yaroo sabi aan mar kala garanaynin in loo niyoodo mooyaane sida xajka oo kale iyo alihaada xajun qaala nacam walaki ajrun qofkan yari waxba niyoon maayo adaa u niyoonaya niyadii adaa kaga naa'iba marka tamyiiz meesha waa inuu yaallaa alcilmu bilmanwi waxa la niyoonayana waa inaad garanaysaa waxaad garanaysa waa iminka haddaad leedahay weysaa niyoonaya haddii lagu yidhahdo weysadu maxay tahay waa inaad garanaysaa oo dee weysa waa sidaa iyo wacadamu lmunaafi wax ka hor imanayoo diidaya iminka haddaad tahay waan weysaysanayaa wixii weysada burinayeyna waan wadayaa taasi ma weysa ma soconayse niyadaada waxba kama jiraan cadamu lmunaafi waxaanaad leedahay waa niyooday wax diidaya oo ka hor imanaya waa inaanu jirin iyo wuxuu ugu dambaysiiyey beydka waa maqsuudin xasan iyo ujeeddo wanaagsan qasdi wanaagsan marka maqsuudka waa ujeeddada laga leeyahay oo niyada waxaa looga jeedaa hadday leedahay wax caado ah oo shabbahda niyadu way ka saaraysaa caadadii iyo cibaadadii bay kala saaraysaa hadday cibaadaaday isu eg yihiin leedahayna cibaadaadka laftoodii bay kala saaraysaa wa tamyiizu lcibaadaati bacdiha can bacdin iyo wa tamyiizu lcibaadaati can alcaada wa tamyiizu lcibaadati can alcaada iyo wa tamyiizu lcibaadaati bacdiha can bacdin waa in shayga iska caadada ah ee aan cibaado shaqo ku lahayn iyo cibaadada niyadu waa inay kala saartaa oo markaad fool dhaqanayso inaad dee iska fool dhaqanayso oo nadaafad ahaan u fool dhaqanayso iyo fool dhaqani inuu weyse u horeeyo niyadaa kala saaraysa markaad maydhanayso inaad gubatay oo kulaylka uun ay markaa maydh iska caado a tahay iyo inay maydh cibaado a tahay oo ama mid waajiba ha noqoto sida janaabadii iyo wixii la mid ah ama xaydkii laga maydhanayay iyo ama mid sunno ah ha noqoto maydhi jumcada iyo maydhi kale la midka ahaa ha noqoto ama mid waxa weeye iska caadi ahoo aan cibaadaba ahayna kulaylka un intaad dareentay ama boor yare kugu duulay aada is leedahay nadaafad ahaan isaga maydha ha noqoto niyadun baa kala saaraysa qofkaa maydhanaya wuxuu ka maydhanayo cid taqaanaa ma jirto ciduu u sheega mooyaane labada ragcadood ee uu tukanaya inay sunno tahay inay farad tahay inay qadaa uu qallaynayo in war looma hayo marka toddobadaa qodob baa had iyo jeer laga hadlaa marka niyadan iminka aynu bilownay markiiba markaynu nidhaahno waxaasaa la niyoonayaa markaad toddobadaa qodob fahanto weliba kan ugu dambeeya waa maqsuudin xasan waad fahmi karaysaa wuxuu uga jeedo haddaba innagoo halkaa ku soo dhowaanayna waxaynu leenahay waxaynu rabnaa inaynu weysaysanno maxaynu niyoonaynaa waayahay haddii weysadu inaga jaban tahay way dhici kartaa waxaa dhici karta inaan weysaba inaga jabnayn ay tajdiidulwuduu iska tahay weyse aynu cusboonaysiinayno oo horeynu weyse qabnaa waxaa dhici kartaa weysana inagama jabna tajdiid caadiyana maaha laakiin masalada khilaaf ku jira daraaddeed lilixtiyaad oo mid ay ahlulcilmigu si badan isugu khilaafaana madhabka shaaficiyaduna in badan sunneeyaana qaarkoodna ka diidayaan oo madhabka dhexdiisa oo ah marka masaladii la ysku qabto masalan hilibka geelu waa jebiyaa iyo ma jebiyo
ayaad odhanaysaa haddaad doonto odhanaysaa anigu ma aaminsanin inuu jabiye lilixtiyaad way iska weysaysanay ama dumarku taabashadoodu ma jabiyaan mise ma jabiso bas odhanaysaa anigu ma aaminsaniye laakiin lilixtiyaad taa lafteedu maxay noqonaysaa waayo marka niyadaada la eego haddii lagu yaa ma weyse qabtaa waxaad odhanaysaa haa waa weyse qaba oo maxaad niyoonaysaa ma weysadaad iska cusboonaysiinaysaa maya ee tajdiid caadiyana maaha oo cusboonaysiin madax bannaanna maaha weysadaydii baa hadalgalay weysadaydii baa hadalgalayoo qoraa halkan iga leh way kaa jabtay anna waxaan leeyahay waa iska tidhaahdeen markaa khilaafkaabaan ka baxaya khuruujan min alkhilaaf tan noocaasiya maxay noqonaysaa maxaad niyoonaysaa ilaa xadas ma qirsanid in weysadu kaa jabantahay oo xadas ka kor yeelayso inaad iska cusboonaysiinayso ajar unaad doonayso ma qirsanid khilaaf baad kaga baxaysaa markaasaad fahmi karaysaa niyadan uu tilmaamayaan ahlulcilmigu ay kala qaadqaadayaan ujeeddaday ka leeyihin marka wuxuu yihi qodobka koowaad waxaad niyoonaysaa oo dhowrkaa qodob midunbaa kugu filan tad niyootaaba waa tii kale masaa'ilka qaarna way isku khilaafayaan oo way kala duwanaanayaan waynuna arki doonaa wuxuu yidhi niyatu rafci xadaثin waxaad niyoonaysaa wayse jabkii waa markay kaa jabnayde inaad iska kor yeesho oo xadaskan xukumkii ka dhashay ee manciga ahaa inaad meesha ka saarto ayaad niyoonaysaa markaad biyaha soo qaadato waxaad leedahay waysada iga jabanoo jabiddanaan meesha ka saaraya iyo mancigan ka soo xasilay marka xukumkii ka dhashay ayaan rafcinayaa taasaan niyoonaya taasi waa biyo kama dhibcaan waa sax wey bal taa ka gudub ama waxaad kaloo niyoonaysaa buu yidhi inaad ku bannaysanayso shay u baahan in loo dahaaro qaato oo rafculxadas ba adigaan odhan ayaa waxaad leedahay waxaa niyooday waad niyadda ku qabanaysaa qalbiga ilaa afku shardi maaha inaan ku bannaysto shaygii u baahanaa dahaarada ee dahaaro la-aantu ii diiday markaa rafculxadaskina automatically buu hoos gelaya oo salaadii kuu bannaanaan mayso haddaan xadaskii kor noqon dawaafkii kuu bannaanaan maayo haddaan xadaskii kor noqon musxafka taabashadiisa iyo qaadistiisa isna kuu bannaanaan maayo haddaanan xadaskii meesha ka saarin qiradu iyadu waa gaar oo qirada waad akri karaysaa siiba markay aanay markaa jinaabadii ahayn ay tahay xadaskii kale laakiin taabashadii bay ka hadlayeen iyo qaadistii masaladaa lafteeda waxaa laga yaabaa markaynu xaydka dhex joogno inaynu wax ka yara baraarujinno musxafki iyo umuurihiisa waaya haddii ilaahay inagu simo subxaana wa tacaala marka wuxuu leeyahay waxaad kaloo niyoon kartaa bannaysi aada bannaysanayso weliba marka aanu xadaskaagu kor noqonayn tana hadhow ku arrinkaagu ku soo gaaban doonaa sida gagabaysigii oo kale iyo markay hadhow dahaarada la niyoonayo maxaa gagabaysiga loo niyoonayaa istibaaxay u niyoon doonaan oo waa mubiix bay odhan doonaan qofkii daa'imulxadaska ahaa ee xadasku iska socday xadas baan kor yeelayaa ma niyoonayo ooye waxaan bannaysanayaa salaad iyo dawaaf iyo umuurahaasu niyoonayaa bay leeyihin waayo xadaskiisa waa socdaaba muxuu kor yeelaa waa iska socdaanba aw amase wuxuu niyoonayaa istibaaxati muftaqirin inuu bannaysto wax u baahan ilaa duhrin dahaaro qaadasho oo dahaaro u baahan aw amase adaa'i fardi lwuduu waysada faradkeedii inuu guto ayuu niyoonayaa weliba sidan imaamku isu saaray adaa'i fardi lwuduu sidan shardi uma aha ee waxaad niyoon kartaa wayso waad niyoon kartaa sida imaamka laftiisu rajacay imaamu markaa nawowi madhabka in badan oo ka mid a haba ku khilaafay oo madhabka badidiisa baa khilaafay waysada faradkeeda haddaad niyootana dee waaba kifaaya waa sidii loo baahnaa oo shay kastaa dee wuxuu ku sugnaadaa in arkaantiisa la helo marka wayso waxay ku sugnaanaysaa
sunanteeda iyo waxyaabaha kale in lagu daraa waa iska kamaaliyaade in arkaanteeda la dhammaystiro marka haddaad tahay fardi lwuduu baa niyooday inaan guto macnaa oo la imaado weysadu wixii aanay la-aanteed ansaxayn oo faradka ah iyo arkaantii taasina waa kaaga filan intuba waa kaa diiqaysaa saddexdaa qodob laakiin waxbuu ka soo reebaya wuxuu yihi waman daama xadathuhu qofkii xadaskiisu daayimo ka mustaxaadatin sida gabadhii dhabar furka qabtay iyo salisulbawlka qofkii qabay kaadidu iska socotay iyo kafaahu waxa ku filan niyatulistibaaxa ku filan niyadii banaysiga isaga xadas ka kor noqon maaye niyada banaysigaa ku filan duuna rafcigu kuma filla oo rafci ma niyoon karo cala saxiixi wejiga saxiixa ah ee wujuuhda ay ugu kala baxeen a'imada madhabku wejiga saxiixa ah asxaabu shaaficiya marka lagu socday wejiga kale daciifka noqonayo fiihimaa ay fi lmas'alatayn labada mas'ale uu sheegayaa waxa weeye niyatulistibaaxa inay ku filan tahay iyo masalada labaad oo ah rafcigu inaanu markaa ka gudayn oo duuna rafci ah oo labada weji ee ka soo horjeeda ayaa qola waxay leedahay war maya labadaba waa niyoonaya maxaabaad ugu kala saaraysaa labadaba ha niyoodo istibaaxa iyo rafculxadath labadaba ha niyoodo waayo xadaska laftiisu si mu'aqat ah si yaroo kooban oo mu'aqata waqti koobana ayuu yaro kor noqonaya mar hadduu shaqaynayo ama waxa uu kor yeelaya wuxuu ka dhigayaa intii tagtay oo wuxuu odhanayaa markuu labadaba niyoonayo u jeedaa waxaa niyooday xadaska intii soo hormartayna inaan iska kor yeelo intan iminka joogta iyo inta dib ka iman doonta ila way iska socotaaye na inaan bannaysto oo cibaadada ku bannaystaan biyahan isugu shushubaya marka qolaale war labadaba ha niyoodo qolana waxay leedahay kuu doono ha niyoodo oo mid ahaanu labadaba wuu naqdinayaa markaas saxiixani labadaba wuu naqdinaya marka wuxuu leeyahay kafaahu waxaa ku filan hee niyatulistibaaxa oo qolada labadaba tidhi ka yeeli mayno duuna rafcigase maya oo qolada labadaba tidhi waan naqdinaynaa qolada mid ahaan tidhina kuu doonabana ma yeelayno cala saxiixi markaynu ku soconno fiihima ay fi lmas'alatayn labada mas'alaba istibaaxada iyo rafciga labadaba imaamku ta uu halkan ku qoray ayaa saxiixa labada wejiga kalena waa la tuurayaa wey oo waa daciif oo weliba daciifkooda mid liita ka dhigay waman nawaa kii niyooda tabarudan qabowsi maca niyatin muctabara iyadoo niyadii muctabarada ahayd ee saddexdii aynu sheegayni mid ahaana uu niyooday oo ama inuu faradkii weysada la imanayo ama inuu xadaska iska kor yeelayo xadaskan ku sugan ee salaada iyo dawaafka iyo waxba u diidaya ama istibaaxada isagoo niyooday hadduu qabowsina ku lamaaneeyo jaaza waa bannaan tahay cala saxiixi markaynu ku soconno oo wejiga ka soo horjeeda inaanu macno lahayn buu muujinaya waana sidaa u dhigay wey waayo cibaadadii oo ilaahayo wax kale alle lala wadaajiyey ma noqonayso iskama hor imanaya sideedaanay qabowsigan usoo xasilayaan oo haddaad weysaysato kollayba qabowsigu waad ka helaysaa automatically bay u dhalanaysaa marka in lagu yidhaahdo cibaadadii alle ee weysada ahayd ayaad ujeeddo kalena masalan niyootay oo lagugu bushiyaa arrin saxa ma waxay ka dhigan tahay adiga oo maamuum ah oo imaamka inaad raacdana raba markaad takbiirta iyo kor u dhigayso cidda kaa dambaysa inaad gaadhsiiso oo maqashiisana doonayo marka waxba dhib male isma diidayso marka wuxuu leeyahay haddaad dhinacna qabowsi ka niyooto anigu waa gubanayaan iska weysayste dhinacna niyadii muctabarada ahayd la timaada ee ay u baahnayd weysadu way isqaadanaysaa isma diidayso jaaza waa bannaantay cala saxiix aw amase wuxuu niyooday maa yundabu lahu wuduu'un wax weyse loo sunneeyo ayuu niyooday inuu markaa uu u weysaysto ka qiraa'atin sida qiradii oo kale falaa
ma gudayso fil asaxi markaynu ku soconno oo arrintaasi arrin markaa sax ah oo bannaan ma aha wuxuu leeyahay ashyaada waysada u baahan qaarkood dee shardi bay u tahay oo wayse la-aan ba lama ogola qaarkoodna waxa weeye waa iska sunna un way iska fiican tahay inaad weysaysataan laakiin laguu diidi maayo waa qiradii qur'aanka oo kale oo musxafka taabashadiisa iyo qaadiddaa la isku hayeeye hadoo waysadu kaa jabantahay qur-aanka waad iska akrinaysaa awalba iyadaan cidi kuu diidanayn oo intaad doonayso akhri lagu lahaa oo ahlulcilmigu waa isku itifaaqeen oo ciddo kuu diidayn haddaad tidhaahid haye in la weysaystaa sow kama fiicna haabaa lagu odhanayaa laba iskuma hayso inaad weyse qab ku akrido ayaa fiican bes waxaan u weysaysanayaa inaan akhriyo qur'aanka waxa uu leeyahay mar hadday macal xadasin xadaskiiba ay ku bannaanayd niyada noocan ahi kuma filla waayo xadas baan kor yeelayaa maad odhan sidaydaan weyse u niyooday maad odhan weysadii waxaan alleba ku xidhin oo rasuulkiisu ku xidhin sala allahu alayh wasalam oo aanay shardiba u ahayn ayaad ku xidhay waa weyse qiraa'o weysadii qirada weyse qiraa'ana mid ka jirtaa ma jirto oo u gaara marka wuxuu leeyahay war arrintaasi meesha ma leeka waaye ka dambe ee ka soo hor jeedo isna xoog badan maadaamuu asax ka cabiray wuxuu leeyahay maya maqsuudka iyo ujeeddada uu u jeedaa waa inuu sunnada soo xasiliyo sunnaduna sideedii cibaado u tahay waysaqab inuu qur-aanka ku akriyuu doonaya waana mustaxab marka inuu soo xasiliyaabuu doonaya xadaska oo uu kor yeela mooyaane si kalena ku soo xasili mayso marka niyadan aad doonaysa rafculxadaska waa mutadamina waa mid soo gudagelaysa wey marka ninkan inuu iska maydhmaydhayun ha u qaadanine waxa weeyaan cibaado rafculxadasa bay tadamunaysaa niyadiisana hoostay ku wadataa marka kaa laftiisu inuu xoog badan yahay oo qowl la dhayalsan kara aanu ahayn ayuu muujinaya maadaama uu yidhi waxbaa qasab maaha mar haddaan ku idhi qiraan u akrinayaa mar hadduu shay mustaxaba yahay shayga mustaxabkaa waysadaan niyoonaya mar kastaba weligaba aan tan idhaahdee waa tii rafculxadaska ahayd laakiin marka aanay kaa yeelaynin labada wejiba isu soo baydhayaan ay ku odhanayaan waxaagu sax maaha waa marka shay aan looba jidayn aada u niyooto aada ka dhigto inay weyse u tahay sida suuqa gelistiisa oo kale waxay ku odhanayaan suuqa gelistiisa ayaa kugu yidhi waa loo weysaystaa haddaad leedahay saydaan u dahaaro qabaya adoo iminka markaad weysaysanayso aada leedahay xadaskaan iska kor yeelaya suuqana anoo daahiraan gelaya dee taasaa lagu ogolya laakiin xaggaad ka keentay weyse la yidhaahdo weysada suuq gelista adeerow taasi ma jirta inaga daabay odhanaya taasi magacba ma leh saydaan u dahaaro qabayaa dheh oo weyse caadiya weyse niyood laakiin naga daa waxaan kalaad luqluuqayso waaya markaad fahanto niyada iyo waxay uga jeedaan meelahan ujeeddadooda fog waad garanaysaa mararka kalena hadalbadni baad u arkaysaa midna ogaada fuqahadu hadalka way badiyaan oo masaa'il badan bay dhex galaan laakiin markaad bulshada dhex gasho bulshadaa ka hadal badan waktigaanu manhaajkiiya baran jirnay waxaanu is odhan jirnay waxaan ay shubayaan fuqahadu waa maxay laakiin markaanu bulshada dhex gallay ee xukun iyo waxyaabahaana u fadhiisannay waxay ku hadlayaan kitaabka waad ka waayeysaa kutubtaba ka heli maysa iyagaa ka hadal badan mar dhowbu waxba intuu caynkiiyo bayda isugu jaro ayuu kugu odhanayaa shiikhow ka warran marka haddaanad qawaacidda guud garanaynin ee qawaacid markaa fiqhiya iyo qawaacid اlusuul اlfiqhiya iyo fiqiga laftiisa iyo qawaaciddu ku soconayo waktiyo badan baa ilahay yaab kuu keenay inta badan furuucda la waayana kutub shaaficiya waa laga helaa qaalibka markiiba meelumaad ka soo helaysa iyagoo kaga hadlaya marka waxba ha la yaabin qaar baa hadhow ku odhanaya intay weyso aanad fahmaynba la yimaadaan ayay kugu odhanayaan ka warran
markaasoo samxaad u niyood de waxaanu la garanayn buu kuu sheegaya anigu saa iyo saas umaan uga jeeda ka war wartu ma weyse caadi aad uga jeeday maxay tahay marka waxay u baahan tahay in alfaad ay adeegsanayaan fuqahadu hoos loo eego wayajibu waxa waajibaya qarnuha niyada in lala xiriiriyo بأول الوجه وجهك أول كيسة أي بأول غسل الوجه وجهك أول كيسة ميريتان كيسة إن لا حريريو أي واجب يسا وأي شيء كستا وحقوق قدما أركان تيسا إن لا يماتو أركان تنا هلقك بلاب ميسا وجهك كوة أركان نيادة الغيماتو marka niyadu qalbigoon baa laga niyoonayay ahkaamtii amaliga ahayd la sameeyay xubnaha laga sameeyay waji meedka ugu horeeya marka wuxuu leeyahay niyadu waa inay wajiga la xiriidha waqiira waxa la yiri yakfi waxa ku filan bi sunnatin qablahu inay la xiriidho sunnada ka horeysa laakiin bi shart waa inaan la jarin marka lafteeda qiilku waa xoog badan yahay waa inaan la jarin oo niyada markaad la kala timaado ka soo bilowdo sunnayaasha faraxalka iyo luqluqashada iyo sandaarsiga iyo umuuraha markaad ka soo bilowdo waa inaad sideedii u wadataa oo adoo sideedii u wata niyadii aad wajigana maydhaa laakiin marka hore haddaad tahay farahaygu maxay la uskagoobeen oo aad faraxalaato oo aanad niyaba la iman mar dhowna tidhaahid afka laftiisa waxaan cunay baa xasaan igaga yara reebay oo aad luqluqato oo aanad niyo weysaba weli gaadhin de hadhow kuu shaqayn mayso waa inaad niyada marka hore weyse niyootaa ayaad hawlahan gelayso niyadiina sidii u socotaa iyadoo sidii u soconaysa wejiga soo gaadha haddii kalena waxaan hore iska wadwado oo waa inaad markaad wajiga marayso isagaa arkaantii kow ahe marka niyada laga yimaadee isagiyo niyadii waa inaad isku lamaanaysaa oo halkaa ka bilowda kutub alqawaacid alfiqhiya sidii faraa'id ulbahiya waqtiyada aynu dhigi jirnay faraa'id ulbahiyaha iyo masalan waxaynu arki jirnay madhabku dhexdiisa inay iqtiraanka niyada awalka lala xidhiidhinayo inay odhan jireen maqaab curfiyaba mise waa qaab xaqiiqiya in badan oo ka mid ahina oo marka aimada oo subki iyo qeyrki iyo sarkashi aimo badanna ay odhan jireen maya ee waxa kugu filan taa curfiga taasaana fiicnayd oo maantaba inaad waswaas iskelisaa waxba shardi maaha mar baa tayd niyadii haddaan bilaabaya waxba muhim maaha mar haddaad marka hore niyooto inaanad jarinuun baa muhima taa doontaad yara mashquulshidbe inaanad jarinuun oo weysadii aad soo bilowday meel aad kaga noqotay inaanay jirinun baa muhima wayajibu waxa waajibaya qarnuhaa in lala xidhiiriyo biawali lwajhi wejiga bilowgiisa ama awalkiisa waqiila waxa la yakfi bisunnatin qablahu sunnada ka horeysana waa ku filanta walow wuxuu leeyahay niyadii tafriiquhaa inuu u qaybiyo calaa acdaa'i xubnihiisa fil asaxi markaynu ku socono wejiga sicada badan leh inuu xubnaa u qaybiyaan afar xubnood xubin kastaaba xukmo markaa mustaqil bay iska qaadan kartaa xagga niyada marka laga eego fil asaxi wejiga sixada badan leh markaynu ku soconno oo xubin kasta markiidaad rafcul xadaska u niyoon kartaa inaad xadaska ka kor yeesho waaya athani ka labaad rukniga labaad waa qaslu wajhi wejiga maydhistiisa wey niyada kow ah oo markaa wejiga la maydhaya bilowgaa lala iman haddii mid hore lasoo jiitana waa la helaa oo iska soo socotay oo lagu soo simo wejiga in la maydhaana waa rukni wejiga haddaba maxaa taha kutub shaaficiya waxaad arki doontaa wejiga marka halkan la joogo ayuunbay kuu tacriifinayaan mar dambe kugu soo celin maayaan meelaha dambe oo dhan waxay kugu odhan doonaan weji xitaa markay jinaayaadka iyo qoomaha iyo meelaha joogaan waxay kugu odhan doonaan nabarka isaga gudba wejiga iyo madaxa oo ay shaamila yidhaahdaan allatii tashmalu lwajha waalra'sa ta madaxa iyo timaha iyo wejiga isaga gudubto shaamila ah oo laba jabanlaynaysa oo hadday laf caddaatay tahay
laba laf cadaad noqonaysaa mar dambe kuu fasiri maayaan waa inaad baabkan ku soo noqotaa halkanaa weji lagu baranaya wahuwa wejigu maa bayna manaabiti ra'sihi ghaaliban maa bayna inta u dhaxaysa weeye manaabiti shacri ra'sihi meelaha ay ka soo dhashaan madaxiisa timihiisu ghaaliban sida badan wa muntaha laxyayhi halka uu ku dhammaanayo labada lafgarood halka ay ku dhammaanayaan lafgareedyadu isaga imanayaan macnaa weeyaan wamaa bayna udunayhi iyo labada dhegood inta u dhaxaysa weeyaan wuxuu rabaa inuu yidhaahdo wejigu dherer ahaan xagga dhererka duulan marka la eego waa timuhu qaaliban halkay ka dhashaan qaaliban wuxuu leeyahay qofka timihiisu dib u xaydmeen lama tixgelinayo ka mawdiculghamam ee timihiisu wejiga soo galayna meelaha joogaana la tixgelin maayo ummaddu say u badantahay qaalibka abaa la eegaya timuhu asal ahaan wejiga halkay ka soo dhashaan qaalibka halkaa laga bilaabo ilaa lafgadheedda hoosteeda xagga hoose u jeeda intaasi ayaa dherarkeedu ballacana waa dheg ka dheg dhegtaa laga bilaabo ilaa dhegta kale cardan marka waa maa taxsulu bihi lmuwaajaha waa intaasoo qaabiliddu ay ku soo xasilayso qofku markuu saa kuu soo eegayo labadiisa dhegoodna waad aragtaa soo jeedkooda garhkiisan iyo intan wejigana waad aragtaa intaas sidaa uu kugu soo qaabilayo ayaa weji la odhanaya haddii wayse loo baahan yahay intaasaa la maydhaya haddii la yihahdo wejigiisa in la eegaabaa bannaan intaasaa la eegaya haddii la yihahdo wejigayaan waxba lagaga dhufanin intaasaa looga jeedaa adilada wejiga ku timi oo dhan intanuubaad ku soo kulminaysa hadduu halkan timaa ku leeyahay sunniyaa saaran yihiin waa weji uun waa weji timale ee hadhow ma odhanaysi waa madax hadduu salxanyo dheer yahay salxanyuhu madaxay ka tirsan yihiin wejiga kuma jiraan marka inaad fahantaa waa muhim waayo axkaam badan baa kaaga xidhmaysa oo qofkii bidaarta lahaa wejigiisu halkuu ka bilaabmaya iyo halkuu ku dhammaanaya dee waa inaad ku xisaabtanta adoo tidhaahdaa waxba bidaartani waa madax tima waaye waxa weeye halkan caadiga ah ayaa laga bilaabaya ee weliba dadka caadiga ah halka ay ka bilaabanta qaaliban saas weeye masalan haddii timihiisu hore u soo galaanna waxba ha qiimaynin timahan soo galay ee wejigu waa dadka qaalibka ah halkuu ka bilaabmo ee isagaa gaar ha u eegin wahuwa wejigu maa bayna manaabiti ra'sihi ghaaliban maa bayna inta u dhaxaysa weeye manaabiti halkay ka soo baxayaan ra'sihi ay shacra ra'sihi madaxa timihiisu ghaaliban sida badan wa muntaha laxyayhi iyo labada lafgareed halka ay ku dhammaanayaan ay isugu imanayaan waa duulan waa dheerar ahaan wamaa bayna udunayhi iyo labada dhegood inta u dhaxaysa cardan balladh ahaan intaasaa la yidhaahdaa weji fa minhu wejiga ayuu ka mid yahay mawdicu lghamami meelahan wejiga timuhu ka soo baxaan timaha wejiga ka soo baxaa oo ghamamkan lagu sheegayaa waa timaha wejiga ee meelahan soo galaa waxa weeye wejigay ka tirsan yihin fa minhu wejiguu ka mid yahay mawdicu lghamami meelahan timaha wejigu ka soo baxaan haddii wejigiisii qaybi qarsoonto oo tima ay leeyihiin waa weji uun madax maaha oo hadhow isagoo le madaxaan masaxaya intan yar kuuma taaban karo dee intani waa wejigee ka gudub wey madaxa gaadhi wey wakada waxaa la mida ataxdiifu taxdiifkiina waa la mid fil asaxi wejiga sixada badan le markaynu ku socono timaha dhigta qarkeeda ka soo dega timaha xagga dhigta usoo beydhaya adigu taxdiifka waxay ku qiyaasaan waxay yidhaahdaan marka dhigta madaxeeda xadhig la saaro halkaa dhigta u sarraysa foodana xadhigga qaybta kale lagu qabto
timaha wixii xaggan soo maraya wixii xaggan soo gelaya wejiga tan noocaasi oo kala taxdiif la yiraahdo waa qaybtan xaggan usoo hore ugu soo yara maraysa ee salxanyaha iyo hadiya jeer fooda labadoodu ay u dhaxaynayaan isku beegmaysa wakada taxdiifu laakiin waa lagaga daba iman doonaa oo wuxuu rabaa inuu yahay wejigu ka mid yahay laakiin kama mid ahaa madaxu noqon doonaa wakada waxaa la mid ah taxdiifu مثلا تحديث كنا والله في الأصح وجهك الصحة بدل ما كنا نقول صعناه تمهنا هل كان دفور كي يمشي كويا لا يجون وجهك كترسي بولي لكن كما ترسنا في الأصح وجهك الصحة بدل ما كنا نقول صعناه قول كلمة مرافع وي لن نزعتان لبدا نزعتان أو زائد وانا ذريبي كرتا وانا فتحين كرتا لن نزعتان لبدا مركا وحوي صلحنيوت لبدا صلحنيوت مايا ووجهك كما ترسنا صلحنيوه وجهك كما جيران وهما لبدا صلحنيوت بياضان ولبدا عدعد اي يكتنفان هريرها كحيغا الناصيه فوده ولبدا ميلود بنانه فوده هريرها كحيغا صلحنيه لبداسي كما ترسنا وجهك كما مدح مدحي كمدي قلت وحن ربوي الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة صحح الجمهور جمهور أهل العلم وسيء بدنيين وحي صحيح يالين أن موضع التحديث من الرأس إنه كمدي هي مدحا والله أعلم مدحا إنه كمدي هو وماشا وحوي نكتب غيبت إذن صار الله السمانة إلى حاجة وجهنا ويا ربي magacay doonto ha lahaatee waa taawiya waaya oo dhigtii way kana yara sarreysaa xaggana way ka xigtaa wejiga marka taasi kama tirsana ee timahan caadiga abay la haystaan wallahu a'lam wayajibu waxa waajibaya qaslu kullu hudbi kasta ama xirib kasta in la mayro ahdaabta iyo xiribaa ayaa waajibaya waxaajibin suuniya in la mayro wacidaarin taalo maashan la yahdo aan hareedka in la mayro iyo washaaribin iyo shaarubadi iyo wakhadin ay washacru khadin iyo deetimihi dhabanka oo qofka meel bay deetimu soo joogaano armay dhabanka ba ka soo gelaya ama ila shaarubadi waxba isqabsanaya marka timaha dhabankana waa la maydhaya wa anfaqatin garyartiina waa la maydhaya waa timaha ku yaala bishinta hoose xagga qaybteeda hoose oo shaarubaduna bishinta sare ee anfaqaduna waa garyarta oo waa dibintan hoose timaha xagga hoose kaga yaala shacran tima ahaan baa la maydhaya iyo wa basharan jirahaan iyo tima ahaan labadaba waa la maydhaya oo wejigu hadduu tima leeyahay iyo hadduu maran yahayba waa la maydhi jirhkiisa iyo timihiisa waa marka ay laakiin fudud yihiin marka hore waa la maydhaya laakiin hadhow markay fududaana gun iyo baarba waa la maydhi marka kalena dushuunba ay ka maydhin wayajibu waxaa waajibaya qaslu hudbin in la maydho xirribihii indhaha baalashoodii iyo waxaajibin suuniyihii iyo wacidaarin hareedkii iyo washaaribin shaaribadii iyo wakhadin dhabankii ay washacru khadin timihii dhabanka iyo wacanfaqatin timihii bishinta hoose ee garyartii shacaran iyo wabasharan tima ahaan iyo jir ahaanba waqiila waxaa la yidhi laa yajibu baadinu canfaqatin khafiifa garyarta timaheedu ay cufan yihiin xagga hoose in la maydha oo gudaha loo dhaadhacaa waxba waajib maaha wallixyatu ay washacru lixya garhka timihiisiina inkhafad haddii ay fududaato ka hudbin bay la xukum tahay xirribihii wailaa haddii kalena falyaqsil ha maydho daahiraha daahirkeeda intan muuqanaysa ha maydho
timihii wejiga ama gar ha noqdeen noocyada ay doonayaanba ha noqdeen marna 20 baa la gaarsiiyaa marna ilaa 12 12 haddaynu isna 20 u tiriyana waa u tirin karaynaa oo shaarubadoo kale aynu 3 u tirinaynaayo labada qaroo sibaalaan aynu odhan doonno iyo inta dhexe aynu shaarab odhan doonno canfaqadu aynu iyadana 3 u tirin doonno markaad inaha tiriso garhkiina waa kuwan kala qaybqaybiyey oo cidaarkii iyo garh iyo timihii dhabannada iyo oo kuwan u qaybiyey haddaad saa u tiriso 20 bay noqonayaan laakiin almuhim waxay isugu soo ururaysaa timaha wejiga maadaama wejigii maydha layna yidhi timaha ku yaalaana waa la maydhayaa wejiguun bay ka mid yihiin gun iyo baarba waa la maydhayaa hadday laakiin cuslaadaan timuhu ama garh ha noqdeen ama wax kale ha noqdeen hadday cuslaadaan oo timihii cufnaantana looga jeedo markaad qofka eegayso jidhka ka dambeeya inaanad arkayn hadduu garh yaroo iska teelteela yahay markaasaa la odhanayaa waa khafiif haddii jidhka ka dambeeya muuqan waayo oo hadduu xitaa nabar ku leeyahay aanay muuqanayn garhku khafiif buu noqonayaa waa culus yahay mar hadduu culus yahay xagga sare uun in laga maydhaa waajiba waayo nebigu sala allahu calayh wasalam oo garhkiisu cufnaa sida adilada saxiixa ku timi marmarka qaarkood buu waaxidsan jiray oo hal mar maydhi jiray qof garh weyn leh hal mar markuu wejiga saa u mariyo biyaha inaanay wada gaadhaynin tin iyo cirib waa la fahmaya oo intan saruun baa maydhmaysa marka intaas saraa lagu kaaftoomaya hadday timuhu cuslaadaan garhka inaad dusha un saa uga mariso xaggiisana hoose ha iska qalalaataba ayaa kaaga filan mar hadday adkaato waayo tim garhkiisa aad buu weyn waa laga yaabaa inuu laabta fadhiyoba garhkuba meeshan iska marayo aan garhku garhkaad moodiysaba ahayn waa dhici kartaa dee markaa hawl baa ka imanaysa sida awadeed buu yidhi haddii garhku uu fudud yahay sida xirribuhu la mid yahay haddii kalena falyaqsil daahiraha inta sare uun ha maydho waxba yaanu ku daalin gudihiisa wa fii qowlin waxaa la yidhi qowl min aqwaal imaam shaafici laa yajibu qaslu khaarijin can ilwajhi ma waajibayo wejiga inta ka baxday xadkiisa oo wejiga garhkii oo kale hadduu ka baxo intan xadka wejiga ka baxday wejiguna lafgareed buu ahaa marka inta yar ee meelahan maraysaaba ka baxaysaa in la maydhaa waxba waajibi mayso laakiin waa qiil iyo warkii la dhegaysan maayo cala aqal alaxwaal waa inaad dusha gacanta ka marisaa oo hadduu xitaa wen iyo meelahan joogo waa inaad gacanta dusha ka sii raacisaa gudaha hoose bal haba joogeeyo athaalisu ka saddexaad gaslu yadayhi labada gacmood maydhistooda weeye maca mirfaqayhi iyadoo labada suxulna lala qabo fa in qudica haddii la jaro bacduhu gacanta wax ka mid ah wajaba waxaa waajibaya maa baqiya inta joogta ee hadhay ayaa waajibaya aw min mirfaqihi suxulkaa laga jaray fa ra'su lcadudi cududda madaxeedaa la maydhi cala almashhuuri qowlka mashhuurka ah ee aqwaasha imaamu shaaficiya xoogga badan leh ee qowlka ka soo horjeeda daciifka yahay ee uu xoogga yar yahay markaas aynu ku soconno waxay noqonaysaa haddii suxulka laga jaro madaxa cududda ayaa la maydhi waayo maadaama markii horeba laga dhammaystirayay ilaa cududda madaxeeda min baabi maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib suxulkii in la maydhaa dee suuro geli mayso wax cududda ka mida in lagu daro mooyaane saas aawadeed bay xadiista qaarkood ugu timi xataa ashraca fi lcadud ilamaa uu cududda gudagalay marka haddii cududda madaxeedii joogo madaxa yar baad maydhaysaa aw fowqahu ama madaxaa yar meel ka sarraysa baa laga jaray nudiba waa la sunnaynayaa baaqi cadudihi cududda intaa hadhay inuu iska maydho waa sunne laakiin waajib maaho hadduu iska daayo waysadiisu waa u dhanta alraabicu ka afraad musamaa masxin wax lagu magacaabo masixid weeye libasharati ra'si madaxa jirhkiisa wax ka mid ah
أو أمس شعر تماء في حده حد كمدح قصوا وإنه مسحا مدح تشركيسة هدو حيرين هدو تماليه هنا تماها حد كمدح قصوا ودي وإنه عارضا سرك هرك مسحه لقى يلي ماي ده تمر دير لهذا وقربات شوقه هذا الله بدأ قرب مسحه لقى يلي ماي وإنه تماها حد كقصوا مدحا وإن مسحات هذا هاتا ولا صح وجهك صحة بدل له جواز قسله ما يدو إنه بنان تايو ما يدو سيدي إذا أما بنانا على خلاف السنة بان نقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم سخلاف صن لكن معنا ويجوديسه صحيحة ويجوديسه وأيوة مسح وزيادة ومسحات هي زيادة لكن سيدا كله مثلا مد بنان ما هي النوع قلوية بين غنيسة هذا تيمد حان ميريا ووضع اليد جعنت نجستي دون إني بنان تايوية بلا مد نيدا لتشيدين هذا المربى تشيدين هذا المربى حمصا وصارته وأن مرمرين ومساحات دي أنا مرمرين كدقين وإسكا بنانتا الخامس كشنات غسل رجليه لبدا الدين ميرستو دوية مع كعبيه يدو لبدا عنقونا الله لقبه لبدا عنقونا يدو إلى الصعدان السادس كاللحادنا ترتيبه وإن لو كلا ترتيبي ولو كلا الرئيسي هكذا أساسه كلا سيؤكله الرئيان وإن لو كلا ترتيبي بلد هل كيدا هينو جوكتو والله سبحانه وتعالى